runtii annagu ka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha wasaaradda maalgashiga runtii waxay ku aasan tahay waa abuurista jawi la maalgashan karo kolkaynu abuurista jawi la maalgashan karaan leenahayna kow waxa aasaas u ah waa nabadgelyada waxay ogsoontiin dadka hadda waddankeena maalgashaday ama wax sameeyay waxay u badan yihiin dadkii waddanka u dhashay ee ajaanibku uu ku yaryahay runtii taana waxa keenay maadaama inaan waddan la aqoonsan yahay inaan ahayn caqabado badan bayna hortaagnaa talabaad ee imika maalgashigii caqabadu way ku noqotay waxay noqotay weydin ogsoontiinoo de waxa la maalgashadaayo nin walba hantidiisa uu la jecel yahay waa meel amnigeedu sugan yahay nabadgelyo leh horumarkii shaqaynayo horumarkeennii iyo nabadgelyadeennii waxaad moodaa inaan intan dambe ay waxoogaa kolkay jaafaajiriqa oo yimid gudeen inay wax waliba dib u joogsadeen oo ay adkaatayba in dadkii maalgashanay ay ku dhiiradaan marka laga reebo dadkii muwaadiniinta ahaa ama qurbaha joogaan ama qolqol joogba ahaadaan iyaga mooyaane ayna cid kale ilaa xadayna ku dhiirin runtii taasi caqabado badan bay keentay annagu waxaanu mar walba ku dadaalaynay sidaanu ugu samayn lahayn siyaasadda maalgashiga oo iyadoo hadda halkii u dambaysay maraysa iyo hagayaashii maalgashiga si ay wax walba u horumaraan una fududeeyaan maxay ahayn cid kasta oo waddankeena guri maalgasha uu ka hayo ama ajnabi ha ahaadaan ama muwaadiniinteena ha ahaadaane runtii waxa kaloo aanu ku dhiirigelinaa mar kasta inaanu u fududayno shuruucda iyo sharciyada had iyo jeer sida uu qofku hawshiisa muddo kooban ugu dhammaan lahayd runtii qodobka iyaga labaad ee annaga ka wasaarad ahaan waxa weeyaan kor u qaadista wasaaradaha iyo muxuu wasaaraddeeda kor u qaadista warshadaha warshadaheenu wax soo saarkoodu inta badan materialkoodu wuxuu ku xidhan yahay inay la soo degaan annagu runtii waxaanu u samaynaa cashuur dhaaf haddana waxaad moodaa inay caqabado badan hor yaallaan warshadaheenu kow waa tamarta dhibaato badan bay ku haystaa tamarta maba awoodi karaan warshadii mar haddayna leer jaban helay shidaal jaban ayna helay caqabad bay ku noqotay warshadleyda runtii inay wax soo saarkoodu أو عاد إنه باهتر أو عقبت بي يجنا قطعي وعقلنا نقص سماينا يرنتي سيدي حبات كل كوري اللي يمر بين الساعة على شريه وسير دي قوري يا شيخان أنا أقول كيو حنوض يارنا أجور شده أو هذا دوان مرحلة دي ودبية قبل دونه وحدود ديار أرجع سوا ديار يو بربرة عوض النواديار أو تقمد البورمة خاصة وحنا رجينا إن واحد تهدينا أنو مدلو وحنا قبل دونه هذه وحنا نقول بقادينا يا شعبك رئيس سومالي الآن هدينا ابن تشرين هرمرنا بتشرين يدقالة كروك عيانا بتشرين مالكشنا تشرين مايو وحجري دون عينا تشرين ماي وحمات تشرين دون بجري دون marka waxaan anigu ku boorinayaa in hareeraha laga joogo amniga iyo horumarka iyo nabadgelyadeena